بسم الله الرحمن الرحيم مادتي أفكار Soomaaliga fasalka sideedaad cutubkiisii sideedaad oo ah 10kii saddexaad oo isla cutubkaas laakiin 10radeena taxanaha ardaygu si uu 10radii ugu horeeyay oo kala wada socdo 10kaani wuxuu noqonayaa 10kii lixaad oo ay 10radeena silsilada socotay kamid aha cutubka sideedaad marka 10kiisa saddexaad waxaynu ku eegaynaa maanta magacyada xerada ariga xeradiisa magacyada ay leedahay baynu rabnaa inaynu ka hadalno hadii ilaahay way reer miyigu sida ogtihiinba xoolaha ay dhaqdaan waxay u oodaan xero geel oo kale nimanka geel jiraha ay xero weyn oo geel waaweyn leeyahay iyo ubadka xero yar oo ay leeyihiin kaliya u sameystaan marka iyagu wax saa u shida badan male midda kale geelada bahalo soo dusayay isagu inuu ooda ka dusayay waxa soo dhan laga baqmayo laakiin markaynu ka hadlayno hadii ilaahay idmo xoolahan arigu waa dib badan yahay moogtay xeradii waa ka dusaya isaga laftigiisu bahaladii baadii doona uga soo dusaya marka xaalkiisu isaga waxa weeye waa ka duwan yahay kuwa kale maadaama uu ka yaryar yahay si fiican ba isaga looga taxadaraya oo taxadarkiisu waa badan yahay sida hooyadu ilmaha weyn iyo ilmaha waxa weeye dilay ku run yahay yar oo kale ay maaragtay uu kala hormayso xagga baxnaanada moogtay qaabkaas oo kale tabaan rabaa in xoolihiina waxa weeye siday u kala yar yihiin culayska loo kala saaro waaye xerada marka ariga baan rabnaa maanta inaynu isla aragno arigu sida ogtahayba waxaynu ka soo hadalnay horeba uga soo hadalnay oo wuxuu isugu jiraa idii riyo marka xeradiisa waxa weeye dilay ku run yahay qaabkaan oo kale tay u samaysan tahay sidaas oo kale markay u samaysan tahay xeradu ma waxaan rabnaa inaynu ogaano magacyada xeradaasi ay leedahay iyo qaabka loo magacaabo xerada intaas oo qaybood bay xerada noqonaysa ariga loo sameeyo ariga marka idii riyo isugu jira tan waxa ka dhigtaa xeradii waxa ka dhigtaa idaha tanna waxa ka dhigtaa xeradii riyaha kale markaynu sida u kala magacaabo labada qaybood oo aanu siinay waxaan rabnaa marka inaynu ogaano magacyada loo bixiyo xerada marka qaybta u dambayso oo halka damba ah oo labada xerada ka dhaxaysa waxa la yiraahdaa mus baa la yiraahdaa mus qaybtaas waa qaybtii muska ahayd oo dambe labadaana waa idihii iyo riyihi tan gaarka ah oo xerada dhan haysata iyada waxa la yiraahdaa heerar baa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa heerar waxa ku soo haray qaybtan yar oo jaanta iyaduna qaybtan waxa la yiraahdaa edeg baa la yiraahdaa ama edegsun hadba saa u taqaano ama waxa la yiraahdaa qalwana waa la yiraahdaa waa qaybtii waxa weeye waxaraha yararka ah lagu xerayn jiray waxa soo haray qayb kale oo xerada ka tirsan oo la yiraahdo waxaraha yararka goortay caanaha nuugayaan oo caanaha loo dhigayo waxaraha waa la sii xiraa waxa lagu xiraa marka xarig la yiraahdo mareeg xarigaan marka isagana maxaa la dhahaa waxa la dhahaa mareeg waxa kale oo loo yaqaanaa isagana qoolna waa la dhahaa marka waa xarigii waxaraha yararka lagu xiray xeradii marka sida markay u samaysan tahay waxaan rabnaa idaha iyo riyaha adigu sidii ay u kala go'aansan lahayd keeba xigaya guriga oo kale inta badan xerada idaha laba dugsiyo oo iduhu waxay leeyihiin dhogor badan bay leeyihiin dhaxanta iyo qabowga iyo marka adkaysi bay u leeyihiin halka xerada riyaha aad loo dugsiyo xerada riyaha aad baa loo dugsiya dhanka kale guriga marka uu dhankaan oo kale yahay edegsada meesha waxaraha edegteedo laga sameeyaa inta badan gurigu ka jira reerka oo meeshaas waxa weeye gurigu uu reerka uga dhisan yahay waxa lagu magacaabay iyadana raas baa la oranayaa raas waa meesha reerka gurigu uga dhisnaa weey xeradan hadda waa xero cidla ah oo waxa weeye dilay ku yahay laga guuray weey xeradan reeraha waa hore dagay waa ka guuray laakiin qaabkii u samaysnayd baynu rabnaa sida xerada loo sameeyo berri ka maalin hadii aad fasax intaad iskuulaadka ka tagto aad baadiyaha aado inaadan kala garan waayin xerada waxa weeye dilay ku yahay sida u samaysan tahay ariga ay u xiraysan yihiin reerka aad aaday halka marka waxay u ateemareysay xeradu halkaan ardaa bay ku leedahay guriga iyo u dhaxay xerada halkaana ardaa kale oo guriga iyo dibadiisa meesha banaanka ka ah baa jira marka kan ardaa baa marka la yiraahdaa ka ardaaga marka dibadda xiga oo xerada dhinacan guriga ka ah waa ardaaga raggu uu fariisto ragga waaweyn oo odayaasha ah waa fariista kanna hooyada iyo waxa weeye gabdhaheeda baa iyaguna jooga oo caanaha isaga lushaan oo hadii la ku run yahay kabdaha iyo raarka iyo hadba waxay samaysanayaan hawlahooda ah bay ku samaystaan way idaha marka waxa loo soo xijiyay guriga su'aasha ah baan rabnaa inaynu isweydiino iduhu Soomaalidu waxay ku maamaadaa ido riya oo inda inta badan
oo inta badan iyagu ma feejigna oo aad waxa uga feejigan riyaha waa aragtay goorta la daajinayo xataa ninka dhaqdaay wuxuu ku darsadaa aaran oo ugeeb yar buu ku darsadaa oo ah waxaro si ay waxa weeye dilay ku ran yahay markii meelaha lagu ekeeyo ee casaska ay joogaan bahalada iyo waxa weeye dilay ku ran wixii raba inay soo gaadaan ay u ogaadaan ridu marka beef bay leedahay arigu hurr buu soo dhaayay iduhu kadib bay soo didayaan موجد مركب حوجا واقع علوسيين أو واحد دقة نقول أو دقة فضود وحوي ريه مركب سيب هالله دولات كهبين كي ماذا أو ربعين أرجع أصول عن أو كلته أي أوجا إلى عليا يجا شيء بالله مريا حرض هذا أدبل لودكسية تن حرض هذا خفيفة حوجا لقى نجا بعدام أي رجور بدن لين عدي حرض هذا سيد ريه لودكسيو waxay noqonaysaa inay kululaadaan aad bay u kululaanayaan marka saas oo kale buu ninka reer miyiga ay xirfada noocaas ah buu ariga xoolihiisa waxa weeye xirada uu wato ay ku xiran tahay halka marka guriga ilaa iyo ka dambaysa xirada waxa la yiraahdaa kambal baa la yiraahdaa kambal marka waa inta waxa weeye dila ku ran yahay duleedka damba duleedna waa la yiraahdaa duleedna waa la dhahaa kambalna waa la yiraahdaa duleed marka raagowgaas waa tuulaha kambalkii ardaagii miyaa la igu kaliyay wixii la igu kuuyay miyaa igu karaamay maanta kataantii miyaa koore ila meedhay marka gurigii oo dhan baa lagu cidliyay odag waa dadkii la waayaaceen waxa weey dilaa ku ran yahay wixii raadiyeen gabadhii waa qisar dheer oo marka gabaygaas ku saabsan qaybta hore oo guriga ilaa iyo xerada ka sii horeysana iyadana maxaa la yiraahdaa qaybtaas waxa la yiraahdaa fadan baa la yiraahdaa fadan marka qaybta la yiraahdaa maxay tahay waa qaybta arigu intuu waxa weeye dila ku ran caweysinka ay tahay oo hooyadu xaraha riyaha u dhiganayso ama riyaha barkood ay maalayso waxa weeye xil ama ciyaalku ay googaaleysiga iyo meelahan ay rabaan ku sheekaysanayaan arigu intuu sii fariisto weeye marka fadhiga arigu uu halka horo fagaaga ama fadanka fadhiyana waxa la yiraahdaa firsho baa la yiraahdaa firsho arigu waa firshoonaya hadii la yiraahdo يعني عويسنكيسي وي adiga meesha caweysinkaagu nooca dadka loo adeegsado isaga waxa la yiraahdaa arigu waxa weey hadhow marka waxa la sameeyaa ri walba iyo xarteedii iyo lax walba iyo naysheedii iyo sida maartay isu xigaan ay isu garanayaan bay isu ag farfariistaan in marka qaabka noocaas ah halkaas ku shaxaan waxa ku soo haray awrtii reerku ku guuriyay awrta reerka dhinacan gurigu ka dhisan yahay halkiisa dhinaca oo xagga ka xiga baa galaha looga sameeyaa marka waxa la yiraahdaa meesha awrtu fariisato waxa la yiraahdaa gale waa meesha awrtu ay u fariisato reerka marka awrku markaad galaha ka soo kiciso oo rabto inaad dhaamiso halkaan irida guriga iridiisa aad keenaysa waxa ku soo haray gurigii reeraha gurigood maadaama halka ka dhisnaa meel sida u tusmaysan xoogaa oo cabaar u jida hore ka ah baa waxa ka samaysan meeshii ay cunada ku karsan jireen iyadana maxaa la yiraahdaa coon baa la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa dabshid baa la yiraahdaa ama waxa la dhahaa dabshid marka waa meesha ay cunada ku karsadaan weey erayada noocaas ah oo dhan baa marka waxa weeye xerada ariga markaan soo qaadanayay aan rabay inaan ardayo aynu barano hadii waxa weeye xoolaha waa la xereeyaa kaliya inuu iska dhano waxa soo magacyaa ma aynu helneen waxa wali inoo si harsan meeshaan idaha iyo kala badha waxa weeye xerada riyaha iyadana waxa la dhahaa qoqob baa la yiraahdaa qoqob waa meesha waxa weeye diilay ku ran yahay waxarta riyaha nuugto oo dooriga la yiraahdo oo iyo ay ka boodo orgiga marka riyaha lagu daro kaleeto iyo heerarkaas oo kaleeto ayuu ka booda marka meeshaas waa meesha waxa weeye qoqobka waa meesha idaha iyo xerada riyaha kala baraysa qoqob baa marka iyadana la yiraahdaa maxaa marka ku soo haray xerada magacyadeedii oo dhan qaabka noocaas ah bay kuugu samaysan yihiin hadii lahayd heerarkan faa'iidadiisa hadii lagu weydiiyo hadii roob da'o oo xeradu ay dhiriq noqoto oo waxa weeye xooluhu ay xeradu ku qoydo hooyadu waxay uga faa'iideysataa in heerarka waxa weeye ay ku soo deyso xoolaha oo habeenka heerarka ay xooluhu u fariistaan inkasta oo aad waxa weeye uusan u dugsaneen haddana qoyaanka noocaas oo kale taa xooluhu haday ku fariistaan ama hadhow ciyaalka iyo waxaas iyagoo cadays iyo raba inay ka soo maalaan gabdhuhu ay taataabtaan ama ciyaalka yararka waa arigu waa waxa weeye dhagortiisaas waxa weeye waa laga ilaaliyaa marka qoyaan la taabto marka waxay yiraahdaan waa dhululucaya neefku waa dhululucaya oo waxa weeye dila ku runaya sida adigu hadii aadan hilibka idaha aqoon oo kale marka cunto ay kaaga soo baxaan nabarrada waxa weeye dila ku runaya fashinka qaabka noocaas oo kale taabay bay ku keenaysaa marka faraha noocaas waa laga ilaaliyaa marka dila ku ruux xoolo marka ay qoyin way xeradii marka ariga wataas iyadoo oo magacyadeeda inoo leh iyo qaabka ay waxa weeye dila ku run yahay u samaysan tahay faa'iidada kale oo heerarku uu u leeyahay waxa weeye hooyadu riyaha ku maasha qooshiba ugu xiran oo waxaraha ugu dhigataa waxa ku soo haray erayada kale oo meesha ka maqan halkan oodafada la saaro iyo meesha kale ooda la saaro waxa u dhaxeeya ilinka meesha waxa la yiraahdaa miscilil baa la yiraahdaa misciliishu inaga waxa inoo matalaysaa markaynu ka hadlayno si aynu u fahanno
albaabka guriga inuu ku xiran wuxuu leeyahay meel uu qabsado haddii albaabku uusan lahayn handuulka iyo meesha uu qabsado wuxuu ku dhici lahaa gudaha marka misciliishu waxay ilaalisaa oodu goorta xoolaha la saaro inaysan gudaha ku dhicin waxa kala ku soo hadhay ood kale oo la yiraahdo iyadana magaceeda cheating baa la yiraahdaa oodaas cheating ooda la yiraahdo waa ooda heeraarka u gaarka ah heeraarka ba iska leh oodkaas cid kale kuma haysato waayahay waxa soo haray iyaduna oo aan rabnay inaan ogaano oodafada xoolaha marka la saaro habeenka ooda ugu horeyso riyaha la saaro waxa la yiraahdaa ood caanood waa ooda goortay cadayska hooyada ka doonato ay u deyso inta waxa weeye shaaha ay karsanayso waxa weeye ay caanaheeda iyo waxa weeye dilay ku lulanayso ay riyaha soo aadin ooda riyaha loo sii daaya la yiraahdo ood caanood waa ooda ugu horeyso la saaro haddii ariga ooda u dambaysa la saarana waa dhacansan yahay marka dhacan baa marka la yiraahdo taas waxba laga raadsan ariga waa la dhamciyo riyaha bal cadays iyo caana iyo nooga soo lisbalay maray ooda u dambaysan saaray ma salaam marka waxa weey waa inay marka shaydaanka iska naar oo balay bayr yiraahdaan waxa ku soo haray hal qodob oo ariga goortu odagu ka maqan yahay reerka odagu marbu socdaal iyo isaga kacaya marka waxa dhacda gabadhu xaajiyada reerku iyadii gabdhaheeda iyo wiilasha reerka ay ariga ma hor seexan karaan waa cabsanaya ama waxay u baqaysaa ciyaalkii oo arigu de bahalu leeyahay marka waxay samaysaa laba hab bay samaysaa oo ariga ay waardiyo ugu sameeyso labada habid waxa la yiraahdaa qori inay xerada dhexdeeda ka saas oo kale looga taago kadibna madaxiisa lagu duubo waxa weeye maro madow habeenkii marka goortaad meelaha soo socoto waxa arkaysaa qofkaas ariga dhex taagan wuu ku noqonaya kaasoo kale marka waxa la yiraahdaa magalooti baa la yiraahdaa magalooti markuu nooca yahay waxa la yiraahdaa magalooti baa la yiraahdaa waa waardihi ariga weey marna waxay samaysaa meeshii barbaarku seexan jiray ama odaygu ariga u hor seexan jiray bay gogol iyo hadii ilaahay ku reeyaan busta iyo kaba iyo caagad u la suray iyo wuxuun baa la isu agdhigaa qof baa marka meesha urda markaas oo kale ta waxa la yiraahdaa muuse hurde marka maxaa la yiraahdaa waa la yiraahdaa muuse hurde baa marka la yiraahdaa muuse hurde marka waa laba hab marna qof camal baa meesha hurda oo caagadiisa weesada ahayd iyo kaba iyo waxba la isu agdhigay marna ulba waxay ka mudan tahay xerada muskeeda ama goolkaas oo kale ta inta xerada muskeeda laga mudo baa madaxa waxa lagu duubaya maramado halka marka habeenkii marka meelaha soo xataa ragga dhalinyarada oo waxa weey inta badan haasaawataga ah iyaga laftigooda aysan xirfad u lahayn qof bay moodayaan waa iska tagayaan laakiin ninka balada oo soo jireenka ah isagu waa fahmaya wuxuu inuu yahay qormaatulo waxa weey la rabo in gabdhaha iyo hadii la ku run yahay haasaawaha iyo waxa weey arrimaha noocaas oo kale ta ay hooyadu isaga ilaaliso si aan maadaama xaajigi maqan yahay loogu faradaayo waxa weey dilaa ku run yahay oo loo shiday ila shaydaankii fiidkiis ka naadhay waxa tiri balay bayr way erayadii marka aynu sameeynay waa kuwaas muska waxaan niri meesha xerada u dambaysa la yiraahdaa kambalkii waxaan niri waa duleedkii qoqobku waa meesha xerada iyo riyaha u dhaxaysa edegtii waa sheegnay iyaduna qalwo iyo edeg waa isla macne qoolkii iyo mareegtii waa isla macne iyaguna waa kuwaas sharaxaadooda halkaas ay ku qoran tahay iyaga heeraarka marka waxaan niri iyaduna waa meesha waa qayb xeradii ka tirsan oo waxa weeye aweysinka ay xooluhu fariistaan misciliishu waxaan niri waa meesha iridka ah oo oodu ay qabsato si aysan gudaha ugu dhicin magalootiga waxaan niri ama muuse hurdaha waa waardiyaha xoolaha marka odagu uu ka maqan yahay habeenkii ariga loo mudo si aan waxa weeye bahalada iyo waxa weeye waxaas aysan xoolaha ugu soo dhiiran inay u soo dhacaan waxa ay ood caanooda waxaan niri waa ooda u horeyso oo riyaha la saaro xerada riyaha lagu reebo dhacantana waxaan niri waa ooda u dambaysa oo xoolaha la saaro jiitintu waxaan niri waa ooda u gaarka ah heeraarka iyaduna on iyo dabshid waxaynu ku sheegnay meesha ay reerku dabka ku shitaan gongoysna waa la yiraahdaa gale waa meesha awrtu ay reerka u fariisato jabad waxaan niri yagleel iyo jabad laba eray baa meesha ku qoran xeradu marka xeer laga guuray tahay oo deedii la siinaysan wali baabiin waxa la yiraahdaa jabad haday yagleel laakiin la yiraahdo yagleeshu waa meel aan xero ahayn markaad xoolihii uga xero dhigto adiga faaskaagii iyo waxa weeye dilay ku run yahay godintaadii iyo angoolkaaga ta qaatay meel banaan xero ka sameeyay marka waa yagleel tii hore laakiin waxay ahayd jabad bay ahayd raaska waxaan niri waa meesha reerka xerada ka guuray aqalku uga dhisnaan jiray hooso waxaan niri waxaraha yar yarka ah goortii caanaha loo dhigo hadii xerada loo daayo qoraxda kulula ee waxa weeye halis gelinaysa marka geed guriga ka horeeyo kale ta ayaa waxa looga sameeyaa xero yara marka hoosa la yiraahdo ama meeshooda sarta digada ariga looga guro baa waxa weeye lagu hoosa markaas oo kale waxa dhaaya hoosa la oranaya waa maqash yarka ahayd xerada qoraxda looga ilaaliyo weey magacyada caanaha waxa weeye dilay ku reeyay riyaha baan rabnaa inaan marka isla arag lambarka koowaad waxaan niri dambarka horta noolaha oo dhan oo nafleeda dhasho oo dhan caanaha ugu horeeya waxa la yiraahdaa dambar lisna waxa la yiraahdaa caanahaas marka ay xoorkii leeyihiin oo marka kulul yihiin oo marka la soo liso waxa la yiraahdaa lis way caanahaas
dhay waxa la yiraahdaa markay xayaabo yar ama waxa weeye xoor dhacsadaan oo xoorkii marka uu xoogaa ka dhaco waxa la yiraahdaa caano marka waa dhay oo shaaha marka ay cadayn karaan dhanaanka waxa la yiraahdaa caano markay xoogaa wax yar oo dhanaan ay soo galaan oo midabkii waxa weeye dilaa ku run yahay ay ka soo gudbeen heerkii ahaa dhayda marka waxa la yiraahdaa marka dhanaan garoorka waxa la yiraahdaa caanaha riyo markay fariistaan ay adkaadaan oo ay diyaar u yihiin ama ay ku wacan yihiin marka in la lulitaanka ay marka ku wacan yihiin dhitada waxaynu niraahnaa hooyada caanaha rabta inay waxa weeye hadhow suba ka samaysato caanaha waa dhigtaa oo waxa weeye dilay ku run yahay goortay fariistaan oo garoor noqdaan bay waxa weeye dilay ku run yahay hadhow lulata marka dhito marka la yiraahdo macne waa caano loo dhigo in xilli dama la adeegsado ama marti reerka soo beegtay hal la siiyo ama waxa weeye hal la lulee caano dib in loo adeegsado loogu talagalay oo loo dhigay weeye caanahaas dhitada la yiraahdo waxa ku soo haray dhawrtada waxa la yiraahdaa hooyooyinku markii waxa weeye dilay ku run yahay barwaaqo ay u noqoto oo xooluhu u dhalaan geed bay waxay isugu geeyaan caano tay ballamaan marka waxa la yiraahdaa dhawrto habar walba dhiil bay caano ku soo qaadaysaa orgi yarna waxa laga yaabaa inay soo qaadato geedka la isugu imaanaya maalintaas oo dhan baa waxa weeye dilay ku run yahay la wada joogaya la iska sheekaysanaya marka ujeedka iyagu ay caanaha u soo qaadeen wuxuu yahay waa alla bari weeye in ilaahay balaayada ka xijaabo xoolaha waxa weeye dilay ku run iyo barwaaqadan ilaahay waxa weeye wanaagsan uga dhigo shaydaanka iyo balaayadiisa uu hareer mariyo marka waa ducadoodii weeye marka waxa weeye waa dhawrto waa caanaha ay haweenku isu keenaan si ay u alla bariyaan ciir baa ku soo hadhay ciirta waxa la yiraahdaa caanaha la lulo oo subaga laga saaro caanihi goorta la lulo subagii laga saaro waxa la yiraahdaa ciir marka waxa la yiraahdaa ciirta iyo caatada iyo hadii la ku riixay ceeriinka midna sooriye ma galo hadii lagu soo martiyo labada midna sooriye u geeyay sababta ciirtana nafaqada aad kala baxay caataduna neef waxa weeye ambiyihiiba bayleen waxa la qaadanay weeye ceeriinkana de nin martiyo waxa weeye ku yimi oo socdaal dheer soo galay hilib ceeriin oo u geeyay isaguna wax ku haboon ma marka saddexda waxa la yiraahdaa sooriye ma galaan buqbuqood baa ku soo haray waxa la yiraahdaa caano goortay dhanaanaan reer miyigu marbay waxay ku darsadaan in biyo si ay dhanaanka uga jabiyaan marna caano kale oo dhaya bay ku daraan dhanaankaas rabaan marka inay la dagaalaan marka waxay sameeyaan markii laba caanayo oo marka kala duwan la isku daro baa waxa la yiraahdaa buqbuqood baraxna waxa la yiraahdaa marka caano iyo biyo la isku daro ujeedka markay isugu darayaan waxa weeye in ay dhanaanka caano aad markay u dhanaan yihiin waxa laga yaabaa inaadan liqi karin marka si marka waxa weeye dilay ku run yahay aad u cabto caanahaas waxa ku barxanaysaa ay qabow kuugu noqdaan waxa ku barxanaysaa dilay ku run yahay biyo ama caano kale ku darsanaysa labeen baa ku soo haray labeenta waxa la yiraahdaa caanaha ciirta ee la lulo goorta haanta lagu shubo dhiilihii lagu dhigay laga shubo heer bay waxay ku sameeyaan in shaygii waxa weeye dilay ku run yahay laga dhigay gabdhaha marka reer miyiga ah oo waxa weeye dilay ku run yahay baa waxay sameyn jireen xilligaad hadda dadku reer miyi ma ah reer magaal oo wax walba hadda wax lagu sameystaa miyiga laakiin waagaas waxay ka dhigan jireen cream bay ka dhigan jireen marka gabdhuhu aad u dhalaali jireen aad bay marka u qurux badnaan jireen mar oday atar caana ku luuq la oran jiray hadda goor waxa la yiri haweenadiisa waxa la yiri isaga gabdho bay ay dhashay gabdhaha marka caanaha goortay siiso iyagu xogaa bay dhigan jireen odagu laakiin isagu caanihiisa waxa weeye waa dhaban jiray marka gabdhiyo iska dhaldhalaalayo maanta dama arkay markaas uu xisirin iyo habarta ama gabdhaha wax kale u qaraysa markaas uu gabdhihi ambiyo gabdhihi cayri marka labeentaasi waa ajiib weeye marka ereyga ku xigana waxa weeye dhaashi habka loo marsado marka dhaashiga waxa la yiraahdaa marka labeenta ay marsanayaan oo habka loo marsado waxa la yiraahdaa dhaashi marka waa lagu dhaashtaa hadii la yiraahdo waa marsiga habka ay u marsadaaninba dhaashasho ah marka labeentuna waxa weeye dilay ku run yahay dufankaas waxa weeye caanuhu ay ku sameeyaan shayga lagu dhigo marka reer miyiga aqal Soomaaligoodii wakaas aqalka noocaas oo sida u quruxda badan bay joogaan roobkii bay ka jirsanayaan dhaxamihii iyo qabowgii bay ka jirsanayaan hadii ilaahay ku roon yahay dhawrtii iyo bahladii waxaas oo dhan bay waxa weeydiilay ku roon yahay farsamadooda marka kula yimaadeen deegaankooda dhirta leh iyo xoolaha ay dhaqdaan bay ka samaystaan sababta asaantii xoolaha iyo muxuu isugu jiraa cawskii dhirta aan ka soo guranay iyo muxuu isugu jiraa agabkii waxa weeye aynu dhirteena ka qoran marka aadka quruxdaas sida u leeyahay waa aqal aan wax loo dhiga la arki karin weeye cajiib ah weeye hangoolkii iyo faaskii kaas marka waa hangoolka ku sheegay waa kan hadda ma bayna ka fogaaba waka marka waxa weeye kan iligaan waxa la yiraahdaa gar halkaana wuxuu ku leeyahay laba gantood buu ku leeyahay marka ooda goortay rabaan kana waa ku soo jiidanayaan tana oodi baa lagu shacaynaya si oodu isu qabsato maxaa ku xigay isaguna godintii marka ooda lagu soo goosanay waa tayadii daabkeediiba waa kuwaas ooda lagu soo goynaya hangoolkana waa ku soo jiidanaysa waxa ku soo haray marka ninkaas ooda sida inaan ku tuso isaga sida ooda ba loo soo qaaday aragti ila dadku baabuur waxa weeye male dushiisu ooda ku soo qaadanaya soo martin hangoolkii iyo waxa weeye dilay ku run yahay godintiisina waa wata xiradii uu rabaa reerka inuu intaan qoraxdu dhicin uu marka waxa weeye dilay ku run yahay uu oodo waayahay layliga casharkeena
waxa la yiri maxay reer miyigu caanaha waxa way u lushaan sababta caanaha loo lulaa sheegaysa waxa la yiri maxaa lagu magacaabaa caanaha ugu horeeya nafleeyda dhasha caanahaas magacooda sheegaysa waxa la yiri maxaa laga sameeyaa baa la yiri aqal Soomaaliga muxuu ka samaysan yahay maxay tahay hadii ay ku roonyahay shaqada hangoolka loo adeegsado hangoolka shaqada loo adeegsado maxay tahay lambarka shanaad u dambeeyana waxa weeye xerada riyaha maxaa aad loogu dugsiyaa iyada xerada riyaha maxaa loo dugsiyaa hada wabillahi tawfiiq